أقرياي أقرياي أمدي إقراي أقرياي أقرياي أمدي إقراي أدونك دمانتي أقرسبا وعن أمدي sidee imtixaanka loo diyaariyaa maalin ka hor intaadan gelin wax la yaab la maaha inaad naftaada hesho 2 maalin ka hor ama 3 maalin imtixaanka adigoo aan maadada waxba ka garanayn waxaan aaminsanahay in kala bar ardayda jaamacadaha dhigtaahay ay daraaseeyaan maadooyinka 2 maalin ka hor ama 3 maalin ka hor inta aan la gelin maadadaas imtixaankeeda hagaag haddaba dhib ma laha isdaji waxba ha walaacin aniga xitaa sidaas ayaan ahay markaan diyaarinayo imtixaanka welina diraasada jaamacadda waan ku jiraa arrintu arrin ceeb la maaha ama wax kaliya kugu kooban balse fikrad cusub oo la tijaabiyay ayaan ku siinayaa midaasi oo ka kaalmeynaysa diyaarinta imtixaankaaga weliba sida ugu fudud waxay ka kaalmeynaysaa oo ka saacidaysa dariiqadan iyo habkan inaad maadada dhamayso adiga oo aan waqti badan iska cunin waa dariiqo iyo hab cusub oo ku tiirsan akhrinta degdega ah ee laga soo bilaabo buugga bilow laguna geeyo ilaa dhamaad hadda waxaan u galeynaa tallaabooyinka aan doonayo inaan adiga hadda ku guddoonsiiyo tallaabada ugu horeysa waa akhrinta ugu horeyntii tallaabadan ayaa ka qaadan karta 1 saac ugu yaraan kitaabkaaga hortaada soo dhig ama muxaadaraadkii macalinku ku siiyay ama masdar kale oo aad ka helayso macluumaadka imtixaanka waxaad akhrisaa ciwaanka maadada kadibna magaca macalinka haddii uu ku qoran yahay ama aad xafisan tahay waad iska deyn kartaa intaa kadib waxaad akhrisaa fahraska kitaabka ama muxtawayaadkiisa ama halka ay ku taxan yihiin ama jaantuska ciwaanada waa haddii kitaabku ama buugu leeyahay fahras kadib ciwaanka ugu horeeya bilow ee casharada kadibna waxaad isha marinaysaa ciwaanada faqaraadka ama baragraafyada ku dhex jira buugga ciwaanka labaad ayaad u gudbaysaa ciwaanka saddexaad ayaad uga sii gudbaysaa ciwaanada baragraafyada ayaad akhrinaysaa weliba baragraafyada gudaha ha u gelin oo cashirka dheer ee qoran ha taaban midkaasi hab kale ayaad u akhrin doontaa intaasi marka aad samayso habkii koobaad ayaad ku dhaqaaqday habka labaad waxa weeyaan waa inaad naftaada madadaalisaa akhrintaasi dheer kadib dadka qaar ayaa taleefanada ku dheela kuwa qaar ayaa sawirada buugga ku yaala ku mashquula kuwana game ayay dheelaan haddaba adigu wax sameey oo nasiino yar dhex geli akhrintaas iyo habka saddexaad ee soo socda intaa kadib habka saddexaad waxa weeyaan waxaad soo koobaysaa macluumaadkii aad ka soo qaadatay cashirkii aad soo akhrisay markaad soo qabsato buug yar ama nood yar aad soo qaadato kadibna aad ku qulaasayso waxyaabihii aad soo akhrisay markan hab kale ayaad samaynaysaa waa akhrinta loo yaqaano alqiraa'atu sariica ama akhrinta degdega ah tallaabadan ayaa waqti ka dheer kuwii hore ka qaadan karta laakiinse waa qaybta saddexaad oo ka mid ah manhajka iyo habka aad u marayso akhrinta imtixaanka u noqo meeshii ugu horeysay ee buugga ama kitaabka fasalkii koobaad u laabo waxaadna bilowdaa inaad akhriso weliba akhrin degdeg ah adiga oo aan xifdinaynin wax jumlo ah balse faham guud ka qaadanaya ogowna markan waxba kama tegaysid oo dhammaan waad akhrinaysaa waxa ku qoran faqaraadka oo idil intaa markii aad samayso u noqo noodkaagii yaraa ama buuggii yaraa ee aad wax ku qulaasaysatay kadibna ku dar wixii muhiima oo mudan in lagu daro xaaladdan markaad joogto waxaad xifdin kartaa dhammaan wixii aad u baahan tahay macallimiintu su'aalihii ay bixiyeen raadi waaba haddii ay jiraan mawduucyo ay xoogga saareenna isha iska mari oo il gaara ku hay hadda waxaad xifdiday wax badan oo macluumaad ah waadna awooddaa inaad gasho imtixaanka insha allah hana hilmaamin ducada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasho waxaan kuu rajaynayaa inaad ku guulaysan doonto imtixaanka natiijadaaduna noqoto mid lagu farxo insha allah guul wacan ayaan kuu rajaynayaa maca asalaama أقرياي أقرياي أمدي إقراي أقرياي أقرياي أمدي إقراي أدونك دمانتي أقرسبا وعن أمدي هرمرتا أقرسكي باديسو أوذي إيو إنان ياري أولوي وذا أقرياي أقرياي أمدي إقراي أقرياي أقرياي أمدي إقراي أدونك دمانتي أقرسبا وعن امتحان كدوني ذا أقنت لقالو
aqris baa looga gudbaa looga aflaxaa aqriyay ummaddii iqraay aqriyay ummaddii iqraay adduunka dhammaantii aqris baa u wacan ummad yahay ilaah baa addoonkii rasuulka iqra ku dejiya oo awal suurad weeyaan ummad yahay ilaah baa addoonkii rasuulka iqra ku dejiya oo awal suurad weeyaan